السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقتي isbitaalkii gobolka Hiiraan amba guud ahaan gobolada ku teedsan ugu weyna ee aan dhex joognaa dad aad u badan ayaa qaarna ku dhintay qaarna ku dhaawacmay. xaqiiqdii loogama sheekay karo culeyska meesha yaallo qofaan indhaheeda ku arkin. dadkii dhaawac ahay ee qaraxii hore ku dhaawacmay qaarkood halkaan ay ku dhinteen sida agaasimuhu hadda uu sheegayna dadkii shaqaalahayna qaar ku dhaawacmay bukaankiina qaar ku dhaawacmay naf badan ayaa lagu waayay runtii meeshaan wax badanna way dhaawacmeen intii dhaawacanta Allah caafiyaan leena intii dhimatan Allah u naxariisto. xaqiiqdii waxa aad iyo aad looga calool xumoonayaa isbitaalka dhibaatada ka muuqato waa isbitaalka ugu weyn ee gobolkan ee degmo walba ee gobolka maaragtay ka kooban yahay iyo gobolada kale ku teedsan loo soo aadi jiray ee caafimaadka. maantana meel bannaanan joognaa qaybihii kala duwanay hadday tahay qaybtii saalada hadday qaybtii raajada tahay hadday qaybtii bukaanjiifka tahay meel waliba way bannaan tahay. roobka ku da'aya maanta wixii qalab ku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisiina way baaba'een isbitaalka dhismihiisina wuu baaba'ay maanta roobka ku da'ayo in qof la keenay iska dhaafe haddaad aragta meesha waxaad leedahay meeshaanu waxa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi kara maahan. waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta ilaa ummadda ka qabtaan leenahay. waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duwanay intuba maanta waa bannaan yihiin dhul bannaan ayaan dhex taagannahay. qof waliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacan ka geysato gaar ahaan dawladda dhexe waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdega hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan ma aragtay lagu dabiibi jiray intaba meeshu way bannaan tahay. waxaan leenahay dawladda dhexe gacan degdega la soo gaaraan leenahay haddii ilaahay raalli ka noqdo. guud ahaanna cid kastee kaalmay karto isbitaalkan dhibaatada ka muuqata wax nagala qaban kartana waxaan leenahay wayda soo dhawaynaynaa annaguna diyaar waxaan u nahay wax kastee la keeno iyo cid kastee wax qabanayso inaan garab ku siino gacan ku siino fududayno hawsha siday u qabsoomi lahaydaan diyaar u nahay. gaar ahaan ummadda Hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa hadday jaaliyadaha tahay iyo hadday tahay dadka ilaahay wax siiyo muxsiniinta si degdega isbitaalkan in wax loola soo gaaro. annaguna haddii ilaahay yiraahdo maamulka haddaan nahay gacanaha ma laaba doono wax alla waxaan awoodno waa qaban doonaa. laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer istayda ma ahan waa dhibaato heer qarana. xaqiiqda haddaan ka hadlo oo dhibaataan anagu maaragtay maanta xalli karno ma ahana cid waliba wax ka qaban karto. waxaan leenahay isbitaalkii gobolka Hiiraan guud ahaan waa baaba'ayay meel bannaanan joognaahi cid kasta wax ka qaban karto ha ka qabato ayaan leeyahay. agaasima runtii aad adigana u mahadsantahay iyo guud ahaan mas'uuliyiinta kala shaqeysa isbitaalka sidaad noo tusteen baahiyaha ka jiro iyo dhibaatadu intay la eg tahay. runtii qoftii aan imaanin waxay leeyihiin wax fudud laakiin musiiba ka dhacday meeshaan. guud ahaan isbitaalka wuu baaba'ayay wixii agab caafimaad ah iyadana wax maanta haba yaraatay hal sariir ba Allah ka dhigay maanta wax rajala ma jiraan waa kuwaas iyagoo jaqfaha la isdul saaray hadday dariisho tahay hadday sariir tahay hadday tahay qaybta raajada iyo qayb waliba way baaba'day bannaanka la soo tuuray qashamahan loo soo tuuray. waxaan leeyahay cid kasta gacan ka geysan karto gacan ka geysato annaguna agaasima insha Allah way isku tashanaynaa waxaan qaban karnaan qabaynaa. baahidu say u kala darantaa noo soo qori doonteen haddii ilaahay raalli ka noqdo hadba sida u jabtaa oo loo hitiyaah qaybtaan uun ka bilaabi karnaan ka bilaabaynaa. maanta isbitaalka u weynay hal qof meel hal sariirna ma taalo hal qof oo bukaana meel maanta dhiig joojin loogu sameeyna male. guud ahaan waa baabay dhulka uu la mid yahay sidaan isu kaashan lahayn annaguna waa iskaashanaynaa. cid kastee wax ka qaban kartana oo wax uun ku darsan kartana waa kuu sadaqa jaariyaah meeshaan dhibaataa taale wixii aad maaragtay ku darsan karta ku darsaan leeyahay. annaguna insha Allah agaasima waa iskaashaynaa dhibaatada meeshaan ka dhacdana waxaan leenahay ilaahay ma aragtay si fudud xal degdeg ah uu keenan leenahay. aad iyo aad u mahadsantihiin. ballantaynu waxay tahay inaan is abaabulno guud ahaan bulshada aan abaabulno ummadda Hirshabeelle ay isku tashato sidaan wax uga bedeli lahayn muuqaalka isbitaalka beledweynana waa inaan ma aragtay tala guud ka gaaran haddii ilaahay raalli ka noqdo. aad iyo aad mahadsantihiin. ilaahay waxaan ka baryaynaa culeyska in fudeed oo noogu bedelo.